بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمد لله هي مهد علمتها كذب بالله سبحانه وتعالى. أنا مهد علمني أنه aan fadhigan insha allahu taala inagu soo aadan ina soo qaabilsan axkaamta ku saabsan ee sharcigu inoo sheegay. taasaan wixii ilaahay naga waafajiyo kaga hadli doonaa. marka والمرأة المسلمة في رمضان، haweeneyda muslimada ah bisha ramadaan dhexdeeda maxaa ku waajib ah, maxaa looga baahan yahay, maxaa laga rabaa inay la timaado, maxaa la doonayaa inay iska ilaaliso. sida aan ogsonnahayba waxaa inagu soo aadan bisha ramadaan. bishaas oo ilaahay subxaana wa tacaala bilaha uu barakeeyey ka mid ah, khayr badan, fadli badan uu ku jiro, ayaa inagu soo aadan. ciddii ilaahay subxaana wa tacaala uu gaadhsiiyana maalmo kadib in la geli doono ayay u badantay. ruuxa muslimkaa marka waxaa rabbigii ugu dhowaanaya subxaana wa tacaala ee uu janno kaga raadsanayo, ridihiisa uu ku raadinayo, waa inuu garasho u yeesho, cilmi waa inuu yeesho. guud ahaan cilmigu waa shay waajiba, bal waxa weeye barashada cilmiga iyo ruuxu inuu waajibka diiniga ogaado waxa weeyaan waxay kutusaysaa ruuxa guushiisa iyo guuldaradiisa. saa daraaddeed buu nabigu sal lla alay waslam wuxuu leeyahay, man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin. ninkuu ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiyaa. ilahay khayr la doono macnaha waxaa la waafajiyaa barashada diinta iyo ku dhaqankeeda la waafajiyaa. alcilmu asaalix, alcilmu annaafic, walcamal asaalix, labadaasaa ilahay waafajiya subxana wa tacala. waxaa laga fahmayaa xadiidka ruuxaan ilaahay khayr la doonin subxaana wa tacaala, oon wanaag iyo guul iyo liibaan lala rabin, waxaa la garamariyaa cilmiga nafciga leh iyo camalka saalix ee ilahay u dhaweynaya subxana wa tacaala. waa la garamariyaa. waa ruuxaan khayr lala rabin. waa astaan weyn marka oo lagu kala sooci karo dadka, ka saciidka ah iyo ka shaqiga ah, ka liibaanta iyo guusha iyo wanaagga leh iyo ka inkaari ku dhacday, yaa lagu kala sooci karaa. ruuxa muslimkaa marka baab walba markuu gelayo waa inuu cilmigeeda yeesho. haddaad doonayso inaad xajido, waa inaad xajka axkaamtiisa barato ka hor intaadan gudagelin. haddaad doonayso inaad tukato,
salaada axkaamteeda waa inaad barato waad ku qasban tahay tawxiidka axkaamtiisa iyo yani shuruudiisa waa inaad barato waa inaad barato soonka markuu soo gelayo axkaamtiisa waa inaad barato ganacsi hadduu ruuxu gelayo ganacsiga iyo sharcigu wuxuu ka dejiyo waa inuu barto maxaa banaan maxaanse banaanayn si ilaahiisa uu ugu caabudo calaa basiira jidhacadoo la yaqaano inuu qaadaan loo baahan yahay wax iska mala awaal ah iyo iska wad-un waa la wadi jiray wax ku socon maayaan camalka ilaahi subxaana watacaala raalli gelinaya ee abaalgudkiisu uu janno yahay wax sahlan maaha waa wax qaaliya lagu helaa camal marka waxuu iskaga socon kara iska wad waa la wadaaye maaha shuruudiisa arkaantiisa aadaabtiisa waa inaad ilaaliso wey saasaad midhaha jannada ku guran kartaa oo camalkan midhihiisa oo abaalgudkiisa oo janno ah aada ku heli kartaa haddaad dayacdo laakiin midhihiina waa dayacmayaan midhihii iyo natiijadiina way dayacmayaan bishan barakaysan ee marka inagu soo foodle ee inagu soo socoto ayaan doonaynaa insha allahu tacala inaan wax ilahay naga waafajiyay ka taataabano waxaan marka hore ka hadlaynaa bisha iyo fadligay leedahay waxaan ku xijin doonaa hadii alla idmo soonka bisha la soomo iyo isagana fadligu leeyahay kadib baa waxaan u gudageli doonaa axkaamta sharcigu dejiyey ee loo baahan yahay in la ilaaliyo soonkana ku saabsan bishani waa bil fadli badan wey bilaha ilaahay subxaana watacaala kuwa ugu fadli badan bay ku jirtaa rabbina subxaana watacaala fadligeeda wuxuu ku muujiyey waxyaalo badan baa kutusaya fadligeeda kow waxaa ka waxyaalaha fadligeeda kutusaya waa bishii qur-aanka la soo dejiyey wey qur-aanka kariimka ah wuxuu soo degay bisha ramadaan waa kitaabkii ilaahay uu soo dejiyo kitaabkii ugu fadli badnaa ee ugu weynaa wey bisha marka rabbi u doortay inuu soo degaayay bisha ramadaan wey waa arrin dheeraad ah fadli dheeraad oy la dheer tahay bilaha kale lalama wadaago soo degitaanka qur-aanka uu bisha ramadaan soo degay laba macnoba way leedahay midda koobaadi waxa weeye qur-aanka oo duuduuban oo iswata inta laga soo dejiye kor iyo looxul maxfuudka ayaa waxaa loo soo dejiyey samada sokaa la keenay halkaasaa marka in yar looga soo qaaday oo dhowr iyo 20 sano oo nebiga uu qur-aanku ku degayey kolba in yar laga soo qaadayay salawatullahi wasalaamu calayh marka isagoo duuduuban oo qur-aanka o dhan oo iswata ah bisha ramadaan ayaa waxaa lagu soo dejiyey samada ugu sokaysa samaawaadka 7 macnaha labaad ee iyadana ku jira waxa weeye nabigeenna salawatullahi wasalaamu calayh markii aayaadkii ugu horreeyey qur-aanku ay ku bilowdeen ee lagu soo dejiyey bisha ramadaan bay ahayd waa kii ilaahi subxana watacala odhanaya shahru ramadaan aladi unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaat min alhuda waalfurqaan bisha ramadaan waa bisha uu ilaahay soo dejiyey qur-aanka isagoo xambaarsan hanuun iyo aayaad cadcad oo xaq iyo baatilka kala cadaynaya ilahi subxana watacala aayad kaloo qur-aan waa ku odhanaya ina anzalnaahu fii laylatin mubaaraka ina anzalnaahu fii laylati alqadri waa qur-aanka laylat lqadri waa habeen ka mida habeenada bisha ramadaan ka mida marka fadliga ay leedahay ay la dheertahay bilaha kale qur-aankii rabbi buu ilaahay soo dejiyey subxana watacala dhaqankii adduunka ugu talagalay maamulka adduunka ugu talagalay addoommadiisu inay ugu dhawaadaan ugu talagalay kitaab la soo dejiyey ugu weynaa ugu fadli badnaa bisha uu u doortay inuu soo degaayo bisha ramadaan wey fadligaa way leedahay fadliga labaad ay leedahay waxa weeye waxaa ku dhex jira oo bisha ramadaan ka mid a habeen cumriga ibni aadamka kuwa ugu cimri dheer ee maanta jooga dadka maanta jooga kuwa ugu cimri dheer cimriyadooda habeenka hal habeenoo ka fadli badan cimrigoodao dhan hal habeenoo ka fadli badan ayaa macnaha ku jira waa habeenka laylatulqadrka wey bisha ramadaan buu isaguna ku jira laylatulqadri khayrun min 1000 shahrin kun bilood buu ka khayr badan yahay kunka biloodi marka la xisaabo waxay u dhigmaan ilaa 83 sano iyo ka badan 83 sano iyo ka badan cibaado iyo daaco aad la imaanaysa waxaa ka fadli badan habeenkaasaa ka fadli badan habeenkaa laylatulqadr waa hal habeen oo bisha ramadaan ka mid ah
ووحيالها بشهر رمضان أي غيرات كالله إن لو ذاكين وحكم إذا فضائشة وحيالها بشهر رمضان كسوا عنتها إن لو ذاكين بشهر رمضان مركز سوق شو الباب بدأ تشنده ولا فراء الباب بدأ النار تنا ولا حراء الشياطين تورنا ولا حراء حبسي بالقليا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وحوليه هي حديث جابر بن عبد الله ورنا يو صحيحين في صوصارين النبي يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين رمضان مركو يماد الباب بدأ تشنده أيها الله فريا الباب بدأ تشنده الله فريا خيرات كافر بدن وضاعات فرب بدن وضدك توبت كينا يا فرب بدن سود ويمي إلى أدوم دي سود ويني سبحانه وتعالى وحكى الله حريا الباب بدأ النار سنة والله حري الباب بدأ النار سنة والله وضع حري شياطين تينا أيها والله السلسلة دينا والله حري وقال سبحانه وتعالى ينبي النبي صلى الله عليه وسلم sida daradeed waxaad arkaysaan dadka bisha Ramadaan toobad keenaya ama masaajidda ku soo xidhmaya ama salaada tukanaya ama qaadka iyo sigaarka iyo wixii balwada ka go'ayay aad u farbaday soomka keenayna waxa waa mid aan nabigu sheegayo shayaadiintii haystay ay u xidhnaayeen ee adoomada ay u ahaayeen meesha ku qufushay ayaa laga xidhay hadii shayaadiintii laga xidhayna waxay noqotay marka inay soo fakadaan waa fakad marka waxay ka soo farabaxsadeen shayaadiintii haysatay madax furashadu haysatay shayaadiintii noocaahid baa laga qabtay markaas soo fakadeen fakad noocaas marka ku yimaadeen masaajid marka waa fadliga ay bisha Ramadaan leedahay ayay kamid tahay waxa kamid ah fadliga ay leedahay bisha Ramadaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay ruux kasta oo muslim ah bisha Ramadaan wuxuu leeyahay baryo laga aqbalayo sida xadiidka Jaabir ku tusayo إمام أحمد أوريي والنبي عليه الصلاة والسلام عليه لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان مسلم والبوح له دعوة لا أقبلي بشهر رمضان نحذر هذا هو واحد عنده كده عايزه أما تشنه كده عايزه أما الرضا ربي كده عايزين هذا أما الدنيا نفسه كده عايزه دعوة لا أقبلي بعد رمضان كده هذا الليلة هذا مسلم sidaas nabiga sallallahu alayhi wasallam baa oranay waxyaalaha loo sheegay fadliga bay kamid isha markay inagu soo aadan ay foodo inagu soo haysaa runtii cid nasiib leh horta gaadha cid nasiib leh ayaa gaadho damaana ma haysano kulligan ina hada wada gaari doono waxa laga yaabaa inaan gaari weynaba dad fara badan oo tii hore inaga la qayb galay ayaa maanta dhulka ka hooseeyo yaani waxa weeye caalamka ku jira waxay maanta la kulansan yihiin in warkahay waxa laga yaabaa maalinka ama labada bari dhowrka bariya ka laaban inaysan macna wax way kugu basiinba oo gaarin baa laga yaabaa laakiin ciddu ilaahay gaarsiiyay subhanahu wa ta'ala waa nasiibkaasi laakiin wuxuu nasiib xumo isu rogaya hadii ruux intuu gaar ka faa'iideysan waayo oo chaliskaas uu fahmi waayo qiimaha uu leeyahay iyo qadarka uu leeyahay iyo weynanka uu leeyahay intuu fahmi waayo si wahsi iyo cajiibnimo iyo abayeel daraa inuu ku dhaafay taasa aad nasiib xumo waa yani wax way chaalis ku soo gacan galay lama dayaco hadii mesela waxa weeyaan aad ganacsado tahay oo chaalis ganacsi uu ku soo gacan galo faa'iido wanaag keenay karto lama dayaco ma dayaxsan in aqal lahayn baa dayaca chaalis ganacsi waa ka weyn waa chaalis aan lacag la faa'iidin laakiin waxa la faa'iidaa janna la faa'iidaa gorgortankaad gelaysiyo camalkaad gelaysiyo tijaaradiiyo ganacsigaad gelayso bisha Ramadaan ee camalka saalixa abaalkeedu ma aha lacag yar faa'iido waxa weeyaan jannada rabbi subhanahu wa ta'ala marka jaaniskan inaan macna waxa weey faa'iido lahayn oon khayr ka soo jeedin baa dayaca sida daradeed buu nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiis warinay Ka'b ibn Hujra saxaabiga leeyahay wuxuu yiri nabiga maalmaha kamid ah wuxuu nagu yiri sallallahu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu nagu yiri kaalay masaajidka minbarka imaada waan soo tagnay masaajidka nimid markaan masaajidka nimid buu nabigu sallallahu alayhi wasallam minbarka fuulay minbarka markuu darajadiisa ugu horeysa cagta saaray iyo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aamiin
darajada labaad markuu cagta saaray buu haddana wuxuu yidhi aamiin. darajada saddexaad markuu cagta saaray buu haddana nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi aamiin. markaasaan weydiinay buui, waxaan ku nidhi nebi allow, waxaanan hadda ka hor kugu arki jirin baad maanta samaysee see wax u jiraan? markaasaa nebigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh, jibriil baa yaa ii yimid, malakul jibriil ayaa xagga rabbi iiga yimid, wuxuuna igu yidhi buuhi oo uu ii keenay, bacuda man adraka ramadaana falam yugfar lahu, naxariista alla ha ka fogeeyo oo inkaari ha ku dhacdo ninka intay ramadaani u soo gashay oo ramadaan gaadhay haddana aan loo dembi dhaafin. markaasaan aniguna aamiin idhi buu yihi nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh. jibriil baa habaaraya, nebiguna waa u aamiinsanaya salawatullahi wasalaamu caleyh. ma u malaynaysaa inaan habaarkooda la aqbalayn? waa la aqbali. ninkii intay ramadaan usoo gasho ka faa'iidaysan waaye oo sababkii loogu dembi dhaafi lahaa la imaan waaye oo isagoo dunuub dusha ka saaran tahay ramadaan u dhammaatahay, naxariista ilaahay ha ka fogeeyo, aamiin buu nebigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh. taasi waa mid. markii labaad ee aan aamiin idhina ee aan darajada labaad cagta saarayna wuxuu igu yidhi buu ihi, jibriil baa wuxuu igu yidhi, ninkii inta magacaaga agtiisa lagu sheego oo kugu sallii waaye, naxariista ilaahay ha laga fogeeye kaana. markaasaan aamiin idhi. nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh haddii magaciisa aada maqasho oo dhegtaada uu ku dhaco isagoo la sheegayo, xaq waxaa lagugu leeyahay in aad ku sallido salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. ninkii shib iska yidhaahdo oo kugu salli waayo intuu ku maqlana, naxariista eebba ha laga fogeeyo, aamiin. markii saddexaadeen aamiin idhina waxay ahayd buu nebigu uhi salawatullahi wasalaamu caleyh, jibriil baa wuxuu igu yidhi, nin intay labadiisii waalid agtiisa ku duqoobeen haddana aan janno ayna gelinin oo ayna sabab ugu noqonin inuu janno galana, naxariista ilaahay ha ka fogeeyo, aamiin baan idhi bui nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh. labadiisii waalid oo da-a oo u baahan xanaano ayuu soo gaadho agtiisa ku duqoobay, ama midkood baa ku duqoobay. muusan baarinimadii iyo dhaqankii wanaagsanaa iyo samafalkii loo baahnaa muusan ula imaanin, janno inuu galana sabab maysan ugu noqonin, kaas ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyey, aamiin baa idhi buu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh. saddexdaas uu aaminsanay. ujeeddadeennu marka waxa weeye, cidda intay ramadaan usoo gashay lahwi iyo ciyaar iyo laqwi iyo macaasi iyo wax ilaahay ka fogeeye mooyaane wanaagba aan la imaanin oo sidaas isagoo dunuubtiisii ka buuxdo dusha ka saaran tahay ramadaan ugu dhammaaday, ilaahay naxariistiisa ha laga fogeeye kaas. saasuu jibriil ku duceeyey, nebiguna aamiin buu yidhi, innaguna aamiin baan leenahay. maxaa yeelay nebigeenna salawatullahi wasalaamu caleyhi ayaan ku dayanaynaa. xadiidkaas xaakim baa soo saaray, wuuna saxiixiyey sanadkiisa. sheekh naasir iddiin albanina waa tasxiixiyey. waa xadiis saxiixa wey. marka jaaniska inugu soo aadan waa inaan u diyaar garowno saan uga faa'idaysan lahayn. inta ku suurtagal ah ka faa'iidaysi ka ugu weyn ruux walba waa inuu ku diyaar garoobo inuu ka faa'iidaysto. maxaa yeelay qad laa yacuud, inuusan kuguba soo laabanin baa suurtagal ah. inuusan kuguba soo laabanin baa suurtagal oo jaaniska kugu dambeeyey ee ramadaan ah eed xaadirteed ka qayb gasho inuu noqdaaba laga yaabo. waa macquul. bal waxa weeyaan dad fara badan bay ku dhacday. sidaa daraaddeed aan ka faa'iidaysanno oo aanu diyaar garowno. dadku waa laba qaybood wey. marka la yidhahdo ramadaan baa soo dhowaatay oo dhowr beri baa ka laaban oo bil baa ka laaban, dadku laba qaybood bay u kala baxaan. qaybi waxa weeyaan waa dad ku farxa bisha soo gelitaankeeda, kama xumaanayaan, kama murgayaan, ma culaysanayaan, bal waxa weye waa ku farxayaan oo way bishaaraysanayaan. ramadaan baa soo socota, ramadaan baa soo gashay. maxay u bishaaraysanayaan? leanna waxa weye waxay ogsoon yihiin naftooda ayaa waxay ka caada dhigatay oo baratay soonka. ilan dadka bisha ramadaan ay culayska ku tahay waa dadka soonka ayna naftooda u baranin. naftooda waxay u layliyantay oy hayin u noqotay, soonkay hayin u noqotay. bisha ramadaan keliya ma soomaane, soon fara badan oo sunno ah bay soomaan. 6 shawaalkay soomaan, bil walba 3 beri bay ka soomaan,
isniinta iyo khamiistay soomaan naftoodaaba soonka la qabsatay soonka mar hadday nafta qabsato nafta waxaa la yidhahdaa waa sida ilmaha yarkay dhashay oo kaleeto kolba wixii la baray barataa waxaad adigu ku edbiso oo aada bartood ku laylido bay ku laylyadi saas wey haddii aad cibaadaadka iyo daacaadka iyo soonka iyo wanaagga aad ku laylido macaan buu u noqonba cibaadaduna waa macaan wey dadka innagaan dareensanayn oo cibaadadeennaan sidii loo baahna ahayn mooye laakiin cibaadadu wax la dhamiyo ka ugu macaan wey qalbigaa ku dega qalbigaa ku xasila naftaa ku raaxaysata nabigeenna salawatullahi wasalaamu calayhi waa kii odhan jiray xubiba ilaya annisaau watiib wajucilat quratu cayni fi salaa haweenka iyo dhiibka ayaa lay jeclaysiyey buu nabigu yuri salawatullahi wasalaamu calayh waan jecla ilqabowsigayga shayga aan ku farxo en ku ilqabowsadana salaada dhexeeda laga dhigay buu nabigu yuri salawatullahi waslamu calayh kaana idaa xazabahu amrun baadira ila salaa hadduu arrin ku yimaado ka murgiya nebiga oo walbahaariya salaaduu u degdegi jiray markaasuu xasili jiray oo qalbigiisu degi jiray oo ku raaxaysan jiray la kulanka rabbigii subxaana wa tacala uu la kulansan yahay hortaagnida uu rabbigii hortaagan yahay subxaana wa tacala maxaa yeelay ruuxda ibni aadamku iyo naftiisu sideedaba cunto iyo quud bay leedahay ma noolaan karto iyadoon quudkeeda iyo cuntadeeda qaadan quudkan ruuxdu ay quudataay ma aha cabitaan iyo raashiin iyo ma aha laakiin waxay quudataa dikriga ilahi subxana wa tacala soonkay quudataa salaaday quudataa qur-aanka akrintiisay quudataa waxbixintay quudataa quudka ay cuntay ku noolaato kaas wey sidaas wey macana hadday kaa weydana ruuxdu way dhiman marka cibaadada rabbi subxaana wa tacaala naftooda ku raaxaysanaysa saa daraaddeed bay ramadaan u jeceliye ma ka naxayaan salafka ayaa sidaa ahaan jiray ridwaan ullahi calayh waxaa la soo wariyaa haweeney addoon ah ayaa waxaa iibsaday dadkii salafka qaar ka mida iibsaday nin baa iib geeyey dabcan nin saalix oo aada u taqwo badan buu ahaa nin baa ka iibsaday marka wuu la wareegay markuu la wareego gurigiisa geeyey oo bishii ramadaan soo dhowaatay ayaa ninkii gabadha iibsaday baa wuxuu bilaabay inuu raashiin fara badan u keeno ma gurigii oo yacni qudaar fara badan iyo cunto fara badan iyo diyaargarow buu galay markaasay addoontii yaabto waxay tidhi oo waxaan oo dhan id ururinaysaani muxuu yahay markaasaa wuxuu ihi ramadaan baan u diyaargaroobayna waxay tidhi oo idinka sidiinaba ramadaan mooye wax kale yani maalmo kale ma soontaan miya